shirkani ay wasiirada arrimaha gudaha iyo cadaaladda iyo taliyayaal ciidanka booliska ee urur goboleedka Igada ay ku lahaayeen magaalada Mombasa oo loo maalmood ka soconayay ayaa diiradda waxaa lagu saaray falal dambiyeedka xuduudaha isaga gudbay iyo weliba sidii looga hortagi lahaa. shirka ayaa waxaa daahfuray xogayaha guud ee urur goboleedka Igada warkana gabayaahu iyadoo ay ka qayb galayaan wadamada Kenya, Soomaaliya, Djibouti, Sudan, Koonfurta Sudan, Uganda, Ethiopia. inta uu kulanka socday ayaa halkani waxaa lagu soo bandhigay hindise la xiriira sidii looga hortagi lahaa falal dambiyeedka xuduudaha isaga gudba oo ay ka mid yihiin argagixisada sida ururka Al-Shabaab, Daacish iyo Al-Qaacida, mukhaadaraadka, tahriibinta dadka iyo falalka burcadda internetka. xogaynta urur goboleedka Igada ayaa halkani waxay ku soo bandhigeen buugaag iyo cilmi baaris la xiriirta sida looga hortagi karo falal dambiyeedyada ka gudba xuduudaha. kulankan oo ay Soomaaliya uga qayb galayeen wasiir ku-xigeenka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka mudane Axmed Cabdiraxmaan Xasan, safiirka Soomaaliya fadhiya Djibouti Salaad Cali Jeele, sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliska ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Janaal Maxamuud Cabdulle Dhoore, wasiir ku-xigeenka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliya mudane Axmed Cabdiraxmaan Xasan ayaa waxa uu warbaahinta istaaga warbixiyay kulankani. wuxuu ahaa runtii shir aad iyo aad muhiim ah oo ay ka soo wada qayb galeen dhammaan dowladaha xubnaha ka Igad. waa sad la socotaan dhib badan baa ka jirta inaan sida loo xanibayo dadka isaga tallaabay xuduudeen waa iska wada furan yihiin. dad badan oo dunuub gala jira ama ha noqoto dadka dhoofiya ha noqdaan sida dambiga u dhoofiya ama human traffic wax Ingiriisiga lagu yiraahdo ama ha noqdaan even argagixisada si sahlan bay uga gudbaan. marka in arrimahaas laga wada hadlo dadkan si dawladuhu ay hadhowta heshiisyo uga gaadhaan sidii looga wada shaqayn lahaa si iyadoo wada jir arrin hal dal ku filaan kara maaha oo arrin u baahan in dalalkoo dhan ay iska kaashadaan. hadalkiisa ayaa isagoo sii wata wasiir ku-xigeenku waxa uu sheegay in falal dambiyeedka oo ay ka mid yihiin tahriibta sharci darrada ay haatan ay adkeeyeen qaadashada baasaboorka Soomaaliga si looga hortago dadka tahriibta sida sharci darrada ugu socda. runtii horta aad baa loo adkeeyay baasaboorada baryahan dambe qofku si sahlan uma qaadan karo xataa ilaa waxa loo sameeyaa in la xaqiijiyo qofkaasi inuu qofku xataa sheeganay dhawaan waxa la bilaabi doonaa ID-ga nationalka ahaa oo qofka xataa inaanu laba karakter yeelan karin laba shakhsi noqon karin hal shakhsi uu yahay. taas waxaa muddo qaadan doonta laakiin sanadkan ay bilaabanaysaa marka hawl lagu guda jiro wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adeeda ID-ga ay sameyn doonaan. marka arrintaas waa arrin aad loogu guda jiro laakiin waxaa jira dad badan oo soo tallaaba oo ama Itoobiya ka yimaada. runtii dalka ugu badan ee dadkaas ka dhoofa dalka Itoobiya inagu aad la socotaan dad badan soo galaan ilaa Boosaaso yimaadaan ka dhoofaan. marka arrimahaas waxay noqonaysaa arrimo la iska wada kaashaday oo la rabo in la xalliyo. runtiina hal dal ma xallin karo sida la socotaa waa arrin u baahan in dalalkoo dhan ay iska kaashadaan waayo xuduuduna waa dheer tahay. dalalkeen Igad ku jiraan dalal xuduudooda hadda gacanta ku wada hayma. Soomaaliya runtii waxaan ku boorinaynaa in ay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo la dagaalanka argagixisada barnaamij weyn oo socda runtiina ah waxyaalaha in hortaagan. arrimahaas waxay sahlayaan in ururo badan oo caalami ah ka mid noqono. ururadaas runtii aynu u baahannahay inaynu ama ha noqoto xagga dhaqaalaheena kor u qaadaysa ama ha noqoto ganacsiga iyo ganacsiga aynu wadaagayno dalalka aynu jaarka lanahay dhammaan kor u qaadi doona. arrintaas laakiin waxay salka ku haysaa in dawladda lala shaqeeyo arrimaha argagixisada dagaalada socda qayb weyn laga qaato dunuubta aynu sheegaynaa ka mid tahay tahriibta iyo howlahaasna laga wada hortago dhammaan. Maxamed Cabdi Bootaan warbaahinta Star magaalada Mombasa.